asxaabay xilli walba iyo waqti walba idin tahay wanaagsan ku soo dhawaada warbixino ku saabsan Champions League ee maanta la leelayo kulamada ayaa wixii kulamo ka xamaasad badan kulamadii xal leelay waxaa jira kulamo waaweyn ee caawa ka dhici doona Champions League saaxiibayaal waxaan ka xusi doonaa saaxiibayaal kulanka u dhaxeeya Inter Milan iyo Barcelona kulankaas oo kulanka isbuuca ama ugu adag Champions League waxaa ognahay kooxda Barcelona in lagu soo dubtay garoonka San Siro ay tagtay isbuucii hore hal iyo eberna lagu soo daray laakiin waxaa ka dhici doona Camp Nou ayaan saaxiibayaal eegi doonaa haddii aad tahay saaxiibka cusub barteena fadlan subscribe noo saar like-ta iyo share-ta iyo follow-dana nagu dhiirigeli waana ku mahadsantahay saaxiib la jaanqaadkaaga caawa waxaa jira kulamo ka tirsan Champions League waxaa ognahay kulamo badan ee xal dheelay inay guulo soo gaareen naadiyaal waaweyn kulamadaas oo ah kulamo aad u xamaasad badan Chelsea iyo naadiyaal badan ayaa waxay soo gaareen in gool la taaban karo halka kooxdii cajuusta ee Juventus-na ay ku jidho waayahan dhibaatooyin far badan waxayna groupkan ay ka jidhaa kaalinta saddexaad halka horyaalka Serie A-dana ay ka jidho kaalinta sideedaad marka warar badan ayaa ka jira kooxda lagu magacaabo cajuusta ee Juventus sanadkan waxay dareemaysaa dhibaatooyin aad u far badan waxaana hogaaminaya halyeegii iyo tababarihii hore ee kooxda Juventus oo wax badanna koob badan usoo qaaday ilaa koox ka badan 8 ama 7 Serie A laba champion geeyay final waxaa lagu magacaabo Allegri oo hadeertan ku dhibaatoonaya ama dhib kula qaba kooxda Juventus oo sanadihii la soo dhaafay ilaa 3 sano ee la soo dhaafay ee ku jiray wareer iyo walwal far badan maadaama ciyaaryahanno far badan oo tayo lahaa iska lumisay naadigan dhibaatooyin far badan oo soo gaaray waqtigan la joogo oo Champions League iyo horyaalka Serie A-dana dhib ku qabta waxa uu nahay in sanadihii la soo dhaafay koobka lagu magacaabo Serie A-da la geenayay garoonka San Siro marka saaxiibayaal sanadkan waxay wajahaysaa Juventus caqabado far badan oo walwal iyo walbahaar ku abuuri kara Allegri iyo madaxweynaha kooxda cajuusta marka saaxiibayaal kulamada taas ka soo gudbino kulamada xal leelay marka waxaan eegi doonaa kulamada caawa leelay iyo kulamada ugu adag ee xamaasada leh waxaan saaxiibayaal ku bilaabi doonaa kulan ka dhici doona garoonka lagu magacaabo Camp Nou ee u dhaxeeya Barcelona iyo Inter Milan waxa ognahay kulamadii la soo dhaafay ee dheeleen labada naadi waxa ay mar walba awoodda qaadanayay ama mar walba reynayay kooxda Inter Milan ee ku dhashay garoonka San Siro marka Barcelona waxay ku soo dhaweynaysaa garoonka Camp Nou iyadoo madaxa ku haysa ammaanka ku haysa in garoonka San Siro ay kala soo kulantay guuldaro xanuun badan marka caawa Xavi Hernandez iyo xirtiisa maxay caawa sameyn doonaan maxay ku sameyn doonaan kooxda Real Italy Inter Milan waxa marka saaxiibayaal kulankan wuxuu noqon doonaa horta kulan adag oo u dhaxeeya laba naadi oo waaweyn wuxuu noqon doonaa kulan weerar iyo weerar celis Inter Milan kulankan haday ay guul ka gaadho kooxda lagu magacaabo Barcelona waxay hogaamin doontaa ama hogaanka u qaban doontaa groupka C waxayna noqon doontaa naadiga labaad ee ka soo baxa koobkan haddii caawa Barcelona ay guuldaro ama breach lagu qabto Barcelona la horreeyo Barcelona waa u dhamaata sababtu waxay tahay Inter Milan saddexda ciyaarood ee la soo dhaafay 9 dhibcood ay shaqeysta oo saddexdii naadiba oo saddexda waa qaraacda marka kulankan wuxuu noqon doonaa kulan derbiya kulan dhagax ayuu noqon doonaa maadaama maanka ay ku hayaan labada naadi in Bayern Munich mar horeba ay xaqistay in groupka ay iska baxayso oo 16 ay u sii gudbayso awood cadna ay ku leedahay Champions League Barcelona iyo Inter Milan waa loolanka ay ku tartamayaan qofka labaad ee ka soo bixi doona groupkan C groupkan wuxuu yahay groupka ugu adag laga dheelayo Champions League marka saaxiibayaal waxa moodaa in Inter Milan ay awood leedahay haday Inter Milan ay guul ka raadiso ama ay breach ka raadiso Allah ururiyo Barcelona sanadkan waxay la ciyaaraysaa Arsenal waxay la ciyaaraysaa iyo Manchester United iyo West Ham iyo Wolves bay la ciyaaraysaa oo Europa la ciyaaraysaa haddii kulankan ay caawa lagu dhaliyo Camp Nou ay wax natiijo ka keen waayaan kooxda kubadda cagta Barcelona waxa ognahay saddexdii kulan ee soo dhashay kooxda kubadda cagta Barcelona inay laba kamid ay guuldaro qaadatay Bayern Munich ugu tagtay gurigeeda dhagaha ayay ku soo dhufatay halka garoonka San Siro guuldaro xanuun badan ay kala soo kulantay kooxda Real Catalonia ee Barcelona marka groupkan waa group adag groupkan group macnaha laga shakin karo ma ahan
marka nasiibka ayaa waxa weeye caawa kala haysiin doona kooxda lagu magacaabo Barcelona iyo Inter Milano. Inter Milano 6 waxay leedahay dhibcood halka kooxda Barcelona ay 3 dhibcood ay ka leedahay Champions League. waxaana hogaaminaysa kooxda reer Germany ee Bayern Munich waxay leedahay 9 dhibcood. marka kulan adag buu noqon doonaa ayadoo wax badan maanka lagu hayo maadaama 3 naadi waaweyn ay ku jiraan groupkan C. marka kulankan caawa nasiibka iyo qofka naadiga awoodda leh ayaa caawa wax badan tari doona. haddii ay Barcelona ay guul gaadho waxay lahaan doontaa rajo maadaama ay isku dhibco noqonayaan kooxda Inter Milano. waxayna markaas challenge la siin doonaa kulamada ku xiga ay la dheeli doonaan Bayern Munich iyo kooxda lagu magacaabo Victoria. marka saaxiib macana kulankan wuxuu noqon doonaa kulamaha aad u xamaasad badan. marka kulankan isha ayaa lagu hayaa saaxiibayaal ilaa maanta ilaa caawa. kooxda kubadda cagta Napoli ayaa soo dhaweyn doonta kooxda Ajax. waxa uu nahay kulamadii ay soo dhashay Ajax iyo Napoli in Napoli awood saleysay. Napoli ay tahay naadi awood leh sanadkan maadaama groupka A ay kaga jiro meesha ugu sareysa ama figta ugu sareysa. marka kulankan wuxuu noqonayaa kulamada wax xamaasad badan ee ka dhici doona kulanka Napoli. marka Napoli sanadkan inaba caadi ma ahan horyaalka Serie A oo hogaaminaysa waxayna ognahay inay Ajax iyo Liverpool ay dhagaha kusoo dhifatay isbuucyada lasoo dhaafay ee Champions League. marka kulankan wuxuu noqonayaa kulanka labaad ee wax xamaasad badan ee caawa laga dheelayo Champions League saaxiibayaal. marka kulankan haddii Ajax iyo ay Napoli kooxdii raysa haddii waxaan ku yiri haddii kooxda kubadda cagta Napoli ay guul gaadho waxay noqonaysaa in Napoli ay labada lugood la sii galayso wareega 16 ee Champions League. Liverpool ayaa 6 leh halka Ajax 3 leedahay. haddii Ajax ay caawa ay guul soo gaadho maadaama ognahay kulankii gurigooda ay guuldaro xanuun badan kala kulantay kooxda Napoli. haddii Ajax macnaha kulankan ay guul gaadho waxay la dhibco noqonayaan kooxda lagu magacaabo Liverpool oo 6 dhibcood ku leh groupka A. marka kulankan aad buu adag yahay adiga Ajax iyo Napoli. haddii Napoli ay guul gaadhina waxay muujinaysaa in Napoli ay kala sii baxayso dariiqa ama labada lugood la sii galayso wareegga xiga ee 16 saaxiibayaal. marka waxaan iga doonaa saaxiibayaal kulanka u dhaxeeya Bayern Munich warkeeda waa cad yahay inay guuleysan doonto iyadoo away ah. waana koox adag oo haysta ciyaaryahanno xirfadlayaal ah oo ka mid yahay ciyaaryahanka hore ee Liverpool Sadio Mane oo sanadkan awood ku jiidaya kooxda kubadda cagta ee Napoli. waxaan saaxiibayaal oo kale iga doonaa kooxda Tottenham iyo Frankfurt. waxaan ognahay kulmadii lasoo dhaafay in kooxda Napoli ay ku jiro naadiga Frankfurt ku jiro meel fiican. waxaa hogaaminaysa Sporting Lisbon oo hogaaminaysa groupkan D. waxaa ku xiga kooxda Tottenham. waxaa ku xiga Frankfurt. waxaa ku xiga kooxda kubadda cagta Olympico. marka saaxiibayaal groupka D waa group aad u adag. waxaa ognahay Sporting Lisbon